jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala Suudaan salaadiin iyo waxgarad kale ayaa hambaliyo bogaadin u diray madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna dhamaantood Allah subxaanahu wa ta'aala ugu baryeen inuu fududeeyo hawsha culus ee hortaala waxaana ka mid ah hadaladoodii anigoo ah Cabdiwali Xasan Xuseen gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan waxaan hambaliyo aan hawada u marinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed hambaliyadaas oo uu ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo runtii shacabka Soomaaliyeed ay aad iyo aad u sugayeen uguna farxeen waxaan kula talinaynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan madaxweyne Farmaajo in amalka iyo himilada ay ka qabaan ummadda Soomaaliyeed inuu dhabeeyo qaxootiyada Soomaaliyeed oo dibadaha daadsan waxay uga baahan yihiin daryeel ciidanka Soomaaliyeed wuxuu uga baahan yahay daryeel wadanka Soomaaliya maanta wuxuu u baahan yahay badbaado waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shacabka Soomaaliyeed dhamaantoodba waxaan kala hambalyo u dirayaa xildhibaanada ummadda Soomaaliyeed ee ka tarjumay maanta in ay musharrixi dadweynaha Soomaaliyeed ay wateen in ay soo saareen aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynaa waxaan leeyahay xildhibaanada maanta waxa ka turjunteen rabitaankii ummadda Soomaaliyeed waxaan kala aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweyne Xasan Sheikh oo go'aan adag ee dadnimo ah ee qarannimo ee hoggaan go'aan ku qaadan jiray qaatayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa 8 Maarso waxaan qabnaa maanta inay tahay maalin shacaa'irkeeda iyo hawsheeda ay mataqaana dheer tahay waxaana aad iyo aad u mahadcelinaynaa wax kasto ay yihiinba doorashada la doortay shacabka codkiisiina lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa halkaan annaga oo joogna oo jamaaco badan oo reer Suudaan ah inaan halkeenaan aan uga mahadcelinno xildhibaanada doortay oo aqbalay shacabka afkooda anfac waxaan u hambaleynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed guushii taariikhiga ah ee maalinimadii shalay uu maaragtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka soo hoyay doorashadii in dhaweyd lagu taameeyay inay dhacdo waxa filayaa shalay inay ahayd waa cusub oo u bariya ummadda Soomaaliyeed nooc walba iyo meel walba kala joogan marka waxa leeyahay ilaahay idinkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudane madaxweyne ilaahay kursiga kuuma ceebeeyo kursigaas ilaahay kula garab gal anigoo ah Maxamed Ismaaciil Axmed isla markaana kamid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha kala gedisan ee Khartoum waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa guushii la gaaray maalintii shalay ahayd Soomaaliya guur ayaa soo hoyatay waxaan leenahay Farmaajo mudane madaxweyne shacabkii sanado badan ku sugayay shalay ayuu nasiibka u soo hoyday mar walbana oo garab taaganahay hambalyo guul anigoo ku hadlaya magaca ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan waxaan maanta hambalyo u diraynaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii aan ku faraxsanahay maanta xilka uu maanta ay siiyeen aqlabiyadda leh mudanayaasha baarlamaanka sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa kaliya laaba mudanayaasha baarlamaanka ee tusiyay maanta codka shacabkooda inay maanta si nadiif ah u guteen waxaan leeyahay madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hambalyo runtii rajo weyn ay Soomaaliya ka leedahay rajadaas anigu waxaan aaminsanahay in xaqiiqo karto waxaana ilgaar lagu hayaa mudane madaxweyne tiimka soo dooran doonto oo aan aaminsanahay inay noqon doonaan tiim tayo leh waxaan karaa Soomaaliya wadada saxda ay qaaday waxaana aaminsanahay insha Allah taala in guushaasi mar dhow mireed aan gura doono hambalyo mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaad soo celisay himadii iyo aragtidii ummadda Soomaaliyeed waxaad cadaysay wadaniyadaada waxaad u sheegtay xildhibaanada ummadda Soomaaliyeed inaad tahay ninka matali kara ninka ka badbaadin kara meesha Soomaaliyeed ku jirto waxaan xalay daawanayay dabaaldegyada ummadda Soomaaliyeed dadkii ugu horeeyay ee ku dabaaldegay waxay ahaayeen ciidamada iyo farxadda ka muuqatay ciidamada halganka ummadda Soomaaliyeed waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee ku dabaaldegay dadkii ugu horeeyay ee banaanka u soo baxay markii ugu horeeyayna waxay bilaabeen inay amniga magaalada sugaan oo ay cadeeyaan wadaniyadooda runtii dadka Soomaaliyeed waa wadaniyiin ku dhex dhimatay laakiin
qof dhaqaajiyay la ahaayeen. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muddo 6 bil horey u soo noqday ra-iisul wasaare xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa sheekh shariif sheekh axmed. tani ayaana ka turjumaysa inuu guuleystay rabitaanka shacabka soomaaliyeed ee ah maray inuu arkaan isbedel. yuusuf maxamed macali kashmiir warbaahinta qaranka caasimada dalka suudaan ee khartuum.